السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سودو شنال كسهرة سهر عبد الله إذن الله الله يسلم وين سودو وين يا وحي يري مرة سارة وحي سوانيك وحي ريديا وفاير ويبوع أعوذ بالله إلهي وحن كبر يا سنة كسنتين وقت خير قبل نبض بش برواقه وضن وضانه meel kasta aan joognaba maba hadli karo waxan baa dee darashadeedii la taagan yihiin cagshiin ma aragtaa waa 12 hadda waqtigan wax duubaayo darashadeydaa lala taagan marka allah subxaana watacaala waxaa inooga baryayaa horta nabadgeliyo in aan mataqaana aan maaragtay ka kala ku gaarno ilaahay wadankeena nabadha nooga dhigo meelaan joognana nabadgeliyada iyo naxariis korkeena allaha ka yeelo rabbi waxaan ka baryayaa inuu asaguna xifdiyo horeyna wuu noo soo xifdiyey ilaahay waxaan ka baryaynaa cadaabta naarta iyo cadaabta qabrigaba rabbi inuu naga badbaadiyo waalideynteena u dambi dhaafo ilaahay waxaan ka baryayaa sanadkan inuu nooga dhigo iyo kuwa soo socdaba sanad khayr qaba ilaahay waxaan ka baryayaa yacnihii wuxuuna siiyey maaragta waqti aan ku shaqaysano ku noolaano rabbi subxaana watacaala waxaan ka baryayaa inuu noo saa'idiyo ilaahayna nimcada uu siiyey asagaan ugu shukri naqayna alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin yacnihii qofka aan ku shukri naqin ilaahay nimcaduu siiyey waa qof maaragta nolosha ka dhacay rabbi subxaana watacaala waxaan ka baryayaa inuu maaragtay qalbigeena iyo quluubteena nabadgeliyo dhex dhigo inuu meelaan joognaba rabbi naxariistiisa nagu di'iyo sida roobka noogu di'iyo inuu reerarkeena iyo reeraheena uu xifdiyo oo nabadgeliyo iyo naxariis korkeena ka yeela meel kastaan joognaba awlaadeena noo sakhiro faamiliyadeena sakhiro nafteenana isagu subxaana watacaala u badbaadiyo balaayada iyo sharka shaydaanka iyo sharka bini'aadankana uu naga badbaadiyo intaas ka bacdi ilaahay waxaan ka baryaynaa inaan maaragtay khayr iyo barwaaqo aan rajeyno ilaahay horteena dhigo khayr iyo barwaaqo iyo nimco iyo bashbash iyo baraare sanadkii waana soo dhaafay waxaana rajeynaynaa sanad cusub oo qurux badan inaan yacnihii maaragtay uu noo noqdo oo maaragtaa dee ilaahay subxaana watacaala uu maaragtay uu nooga dhigo midaan maaragta ku nuurno oo korkeena iyo nafteena iyo nolosheenuba ku nuurto iyo mustaqbalkeenu intaa ka bacdi waan idin salaamay waxaan idinku soo salaamayaa waxa waaye markaan yacnihii aan dib fiirino maaragtay sanadkii hore aan dib fiiriyo anugu kolley wax badan waan soo dhigay halkan waana hadlay arrimaha bulshadan waad ogtihiin de waa waxaan ka hadlo dhibka iyo maaragtay bini'aadankeena de wuu iska socon laakiin waxaan rabaa inaan in yar aan isbaraarujino aan isxasuusino tan waxa waaye qofka bini'aadanka oo ilaahay abuurtay inuu yacnihii sidii aad ahayd in maaragtay wax iska kaa bedelaan way fiican tahay wax kastana ilaahay wuu qadaray laakiin rabbi subxaana watacaala haddana wuxuu sameeyey wax kasto inay leeyihiin sabab ama koos taas oo ah qadarku isagu waa wax ilaahay qoray inkastoo qadarka ilaahay ku bedelo ducooyinka iyo baryada haddana ilaahay oo wuxuu kaloo ku sameeyaa waqtigeena iyo timekeena waa inaan kaga faa'iidaysanaa oo qorshaheena marka yacni waxa ugu xun ugu liita qof isagoo meeshuu joogay aan waxba uga kordhin yacnihii meeshii dhaca fadhidid aad waxba aadan samaynin sanadkan hadda iyo sanadkii horeba labadaas sano coronaviruska lagu dhex jiro dadkii waxay sameeyeen de qof walbaba dib buu u fekeray noloshoodii buu dib ugu noqdeen shaqooyinkii ay ku jireen dad highly mataqaanaa shaqiyada bangiyada ama shaqooyinka dadka loo shaqeynaya dadkii ku jiro oo dhan dadkii gadaal bay u fekereen waxay dheheen war waxaan de uma adkaysan karnay maxaan samaynaa marka dadka hadda waxay sameeyeen inay shaqooyinkii horeba ka wada tageen oo ay kulligood ganacsi wada galeen oo shaqooyin kale ka raadsadeen wax kasta raadsadeen oo dadkii dheheen
war inaga iyo dee faamilyadeennii ba maaragtay markii aad qofkaagii oo xanuunsan lagu leeyahay ma tegi kartid markii mataqaanaa xataa markii ehelkoodii wada dhinto qofkoo lagu leeyahay ma aadi kartid marka dib baa loo wada fekeray marka waxaa loo fekeray waxaa la qiimeeyey qiimaha uu leeyahay reerku isku xiraanshaha faamiligu qiimaha uu leeyahay in qofka bini aadanka uusan mataqaanaa cilo joogi karinin inaan mataqaanaa adduunka uusan ahayn shaqo ee mataqaanaa ilaahay wuxuu ku siiyey intaan mataqaanaa la iimaansado ay muhiim tahay in yacnihii uu qofku leeyahay xiriir dadkaagii maaragtay hadday noqoto xag jacayl hadday noqoto xag maaragtay isku xiraansho hadday noqoto xag la sheekaysi yacnihii aad iyo aad maaragtay marka yacnihii waxa waaye haddaad qof ahayd shaqo ku foogan oo maaragtay noloshaada inta badan shaqo aad siisay shaqadu qiimo weyn ma samaynayso qof walbaba waxa waaye yacnihii waqti waa inaad heshaa shaqadu waa la cuna waa run waa loo baahan yahay shaqada in wax la cunaa la rabaayo la noolaado oo biil la bixiyo laakiin waxa waaye waa inay isu dheelitiran tahay oo dee naftaadii iyo reerkaagii iyo shaqadii wix isu dheelitiran tahay mideeda kale gacmaha iscaawimaa galladu ka dhalataayo markay dadku iscaawimaan qof walbaba meel wax ka soo qabto waxaa imaanaysa mataqaanaa wax wada qaybsi iyo sibood garayn qof keliya oo keligii maaragtay inuu taagnaado waa laga fiican yahay ama maxaan ku dhahaa dee adiga ma tihid waxa keenaya dhibaatooyinka nafsiyankana waxyaalahaas ayaa ugu horeeya runtii markaynu aan ka hadalno yacnihi marka waxa waaye marka waxa waaye qofka waxaa la rabaa inaad ka fekerno maxaan rabaa inaan samaysto insha allah sanadkan maxaan rabaa inaan samaysto ma waxbaan rabaa inaan barto ma waxaan rabaa inaan guursado ma waxaan rabaa inaan mataqaanaa shaqooyin kala raadsado ma waxaan rabaa inaan ganacsi diyaarsado maxaan rabaa meeshii ilaa sanadka dambe meeshii haddaan noolahay ma waxaan rabaa inaan xajka aado ma waxaan rabaa inaan quraankayga aan maaragtay si fiican dee maxaan ku dhahaa aan yacnihii quraan xaafid noqdo maxaan doonayaa inaan suubiyo marka taas horta waxa waaye waa in qofku leeyahay balaan oo balaankaas u dhigtaa waa inaan meeshii lagugu imaanin oo aadan fadhiin sanadka dambe kugu soo gelin oo aadan ahayn mataqaanaa jugjuglee meeshaadii joogtii la sheegi jiray waa inaadan noqon waa in isbeddel yimaadaa oo aad markaad dib u fakertay aad tiraahdaa alxamdulilah عليه وحسن سمي الحمد لله تاسدان سمي الحمد لله يعني وح على واحد سمي سيدب في خصا مركا هدنا وحواي عاد في رسام حد ربطين القبتين مركا نرشو وحواي وهيكس iyo dhiirigelin iyo maxaan ku dhahaa buurin iyo maxaan ku dhahaa ku dhaqaaqid iyo juhdi gelin iyo maxaan ku dhahaa inaad macnaha ku fognaano aan saarno mataqaanaa culayska ay dhahaan soomaalidu waa laakiin waa inaan dee wixii dhug u yeelano oon dhug gelino oo dhug u yeelano aragtideena iyo waxeena iyo fikirkeena aan isu keeno oo aan yacnihii wixii aan aragno inay nagu habboon aan samayno marka yacnihii waxaan soo wadaa waxa waaye noloshu waa inaanu farxad ku noolaano in yar waaye kooban adduunka noloshu intaa yaroo kooban marka waa inaanu farxad ku noolaanaa oo yacnihii aysan ciriirin iyo diiqadna gelinin noloshu waxa waaye waa inaan ka dhignaa mid aan inaka maadaama adduunka hadda uu stress isu bedelay cuntadii aysan cunto fiican ahayn oo stress waxa gelinayso yacnihii nolosheena waa inaan samaysanaa maxaan ku dhahaa space ama meel maaragtay aan ku nasan karno oo xagga maskaxdeenu ku nasan karto waa inaan wixii isu dheelitirnaa aan qabanayno yacnihii maskaxdeenu iyo nafteenu ay hesho meel ay ku neefsato oo ku degno marka yacnihii qofka bini aadanka wuxuu u nool yahay allaha subxaanahu watacaala abuuray horta inuu caabudo marka ka dambaysana wuxuu u nool yahay inuu naftiisu ay nabadgelyo hesho
inuu si fiican u noolaado naftiisu nabadgelyo hesho intaa markaan ku dadaalo oo inaga nabadgelyo helo wax kasta way noo furfurnaanayaan waayo qofku markuu nabadgelyo helo caafimaad helo caafimaadka tanka saddexaad waaye markaan caafimaad helo nabadgelyo helo adduunyadan kale waa furfuranaysaa marka caafimaadkaaga ka fikir marka ugu horeysa cuntadaad cunaysid inay noqoto cunto qiimo leh oo macaan waxaan wax kuu taraysa oo nutritionkii ama nafaqadii aad u baahnayd aad ka helaysid inaa mataqaanaa qofku uu seexdo hurdo fiican uu seexdo oo waqti fiican aniga saacadan soo jeeda 12 laakiin caawa new year ka siga soo jeeda inaan hurdo fiican seexano waayo waxa lagu leeyahay inta aan hurudno waynu ognahay diiniyan iyo maadiyanba intaynu hurudno jirkeenu isu soo kabaa repair buu sameeyaa lafaday noqoto hadday magaciisa noqoto Allah subxaanahu wa ta'ala ayaa taas saas noogu habeeyey ma fahamtay marka waxa waaye in maaragtay aanu dee yacnihi waa mas-uuliyad ina saaran ma fahamteen inaynu nafteena kow marka hore wax kasta ka hormarino waayo hamigeena iyo higsigeena iyo fikirkeena iyo maxaan ku dhahaa aydiyadeena ama maxaan ku dhahaa yacnihi aydiyada Soomaaliya maxay ahayd wixii higsigeena waxa waaye waxay ku imaan kartaa caafimaadkeena energy waxaan yeelan karnaa ama firfircoonaan yeelan karnaa markaan caafimaad qabno marka waxa weeyaan hal la dadaalo happy new year yacnihi waxaa jirta waxa la dhaho optimistic English waxa waaye nakuna waxaan dhahnaa rajadu waa wax muhiim ah in qofka bini aadanka rajo ku noolaado aan waxa horteena nolosheedana aan ka filano inay tahay ma taqaanaa guul aan gaarayn marnana ha isdhiganin hana samrin qofuna ma taqaanaa rabbi subxaanahu wa ta'ala ayaa ma taqaanaa asaga aan talada saaranaynaa laakiin dadaal waa inaana nimaanaa qofku hadduu ilaahay talada saarto dadaal la yimaado caqabad kasta oo soo marta wuu ka gudbayaa diinta islaamkuna waxaa ilaahay noogu sheegayaa haddii aanu dhibka u samirno ilaahay wuxuu yiri waa idin imtixaamayaa qofka markuu u samranaa qofka waxa ilaahay u ballan qaaday qofkii u samray inuu wanaag uga dambeeyo imtixaankii uu mataqaanaa alla uu ku imtixaamay marka waxaa la iska rabaa inaad horta samirno dadaal la limaadno yacnihi dagaalku ma aha dadaalku waxaa la rabaa nafsiyan iyo maskaxiyanba inaan u dadaalo oo aan ku dadaalo fikirkeena iyo saan u fikirno aan wax ka bedelo nolosheenu say maaragtay horumar aan uga gaarno ugu socono waa idin jecelahay waana idin salaamayaa happy new year mataqaanaa ilaahay maaragtay nabadgelyahay isku keentuso subscription ka saara subscribe kareeya like iyo saara waa idin jecelahay farxad igu nuura ilaahay idinki السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الصحابة إذا شرفت وإذن السلام